waxaa saldhigga magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle lagu gubay muqaadaraadka loo yaqaan xashiishka oo ay tiradiisu gaarayso 382 kiilo oo ay hore u soo qabteen ciidamada amniga dowlad goboleedka Hirshabelle waxaana goobta lagu gubayay ku sugnaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ee kan degmada Jowhar iyo saraakiisha ciidamada amniga Hirshabelle ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay taliyaha saldhigga booliska degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy hawshan waxa waaye howlgalladii socda biliyahan ee lagu dagaalamay muqaadaraadka waxa ilaahay mahadiisa in dadkii ay fahmeen faa'iidadeeda meel walba ay taagan yihiin tahniyada ay soo dirayaan wixii meel ku qartana ay noo soo sheegayaan waxa waaye sidaas inaan u wada shaqeyno dadweynaha oo noola shaqeeyo oo meeshii wax ku jiraan noo sheegaan si aan u badbaadino jiilalka cusub oo soo koraayo oo ay daraagiska ay ku tababarayaan gudoomiyaha degmada Jowhar Cismaan Maxamed Muqtaar Baare ayaa dhinaciisa ka hadlay waxaan bogaadinayaa saraakiisha kala duwan ee ciidamada qalabka sida howlgallada ay ka wadaan magaaladan Jowhar si loo dabargooyo muqaadaraadka xashiishka iyo calaqa iyo qamriga iyo wax kasta oo daraagis ah inay dabargooyaan waxaan leeyahay waan bogaadinaa waxaan leeyahay waa maasantihiin balanteena waa dabargooynta muqaadaraadka du'al yiraahdo ugu dambeyn kusimaha gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Maxamed Cabdi Sheekh Xandow ayaa dhinaciisa ka hadlay waxaan u mahadcelinayaa dhammaan saraakiisha ciidanka qaybahooda kala duwan haday tahay booliis haday tahay military haday tahay nabad sugid iyo dhammaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee ka qayb qaadatay amba informationada soo gaarsiinaysa saraakiisha dhammaan oo idin mahadcelinayaa waxaan idinku bogaadinayaa inaa si la walaabtaan dadaalkiina xaqiiqdii waxa qabateen shaqo lagu faani karo oo bilaaw ah waxaan rajaynayaa in Ilaahay dhawaan la dhameystiri doono waxaan rabnaa annaga meeshaan waxay ahayd Jowharka joog aakhirana janno waxaan rabnaa Jowhar wixii lagu yaqiinay haday tahay wax walba oo wanaaga inay soo noqdaan insha Allah waxaan rajaynaynaa saraakiisha inaysan seexanin har iyo habeen ay u taagnaadaan siday u soo ciribtir lahaayeen qolooyinkan caadeystay inay waxyaabaha amaanka dooriyo jiilkiisa koraya ku habaabiyaan aad u maasantiin dadaalkiin labalaaw ciidamada amniga dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa har iyo habeen u taagan la dagaalanka muqaadaraadka iyo sugidda amniga deegaanada hoos yimaada dowlad goboleedka Hirshabelle Liibaan Cabdulle Maxamed Liibaan Lakiban Somali Cable TV caasimadda dowlad goboleedka Hirshabelle magaalada Jowhar